الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تاريخ ذا كورن كيدو ومسائل aada u khatara marka dhan laga eego oo dadyowga dambe waxay isticmaaleen farsamo ah sidii caqliyada dadka muslimiinta ah loo masixi lahaa oo taariikh badan ay leeyihiin looga tirtiri lahaa ama qaab qaldan loogu sheegi lahaa. السلطان سليمان بن السليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح انت أنا نكور من مقدمة أهان وحلقية بدأتك بدينا يداودين مسلسل عربة حوق لوغو داودا ياتشرا والله هذا حريم السلطان أما القرن العظيم. مسلسل كاسي waxaa la rabaa in sultaankan aynu maanta ka warrami doono lagaga warramo, laakiin waxaa looga warramaa si aad u liidata. waa musalsal dhammaantii naago iyo tumasho iyo khamri iyo dumar iskhiyaamaynaya ku salaysan. ninka musalsalkaa daawadaa wuxuu u arkayaa sulaymaan alqaanuuni inuu yahay cirbiidu dawla alcuthmaaniya. musalsalka waxaa qoray qof dumar ah oo fanaanada oo riwaayadaha qora oo Miraal Okai la yidhaahdo way dhimatay. gabadh taariikh shaqo ku leh maaha, laakiin mu'arikhiintii reer galbeedku iyo dadkii muslimka locolka ahaa waxay ka qorqoreen wax ka mida bay soo naqlisay iyo wax siinaariyaha ay ku qurqurxisatayba. ma aha gabadh diinku shaqo leh, bale waxay tilmaamaan barnaamijta qaarkood markii la wareysanayay waxay tidhi markaa dhinta ha lay gubo, lamase gubin. turkida marka la eego markii musalsalkaa la soo bandhigay 70,000 oo shakwo 70,000 oo dacwadood in ka badan baa loo qadimay wasaaradda ama majlis al-a'la lil-idaa'a wa telefisyooni turkiya oo la leeyahay waxaani waa xaqiiqo laga been sheegayo ee ilaa ay gaadhay inuu ka hadlo madaxweynahoodu oo yidhaahdo sulaymaankaanu naqaanay ma aha kana idinku ka warramaysaan. sulaymaanka ay saa uga warramayaan waa nin dagaalyahana oo mujaahida oo muslima oo futuuxaad badan leh oo gaalada madaxa dhulka u dhigay ilaa uu leeyahay taariikhyahanka jarmal ee Helmer la yidhaahdaa كان هذا السلطان أشد خطرا علينا من صلاح الدين نفسه. صلاح الدين الأيوبي نقان قدس حريي وحنا قدر رابو ليه سليمان القانوني. أما مؤرخ هستوريان كله إنجليز كهارود الله يده وحليه إن يوم موت السلطان السليمان كان من أيام أعياد النصارى بوليه. جيردي نكاسي مالن تودنتي waxay ka mid tahay buu leeyahay ciidahan u dabaaldegno oo ninka caynka Yurub uga baqaysay ama taariikhda inta leegle maxaa sidan loogu dhigay. aan mas'ala idin sheega markaa waxa jira taariikhyahanadu markay ka warramayaan waxay sheegaan oo la yiraahdo at-taariikh as-saghir wa at-taariikh al-kabir. dad marka aad rabto inaad masaxdo oo dad liita aad ka dhigto waxay yidhaahdaan waxaa laga warramaa taariikhu saqiirka. taariikhu saqiirku waa waxay gafafla maalan duwalka oo kale waxaa laga warramaa bay leeyihiin boqortooyada iyo dumarkii joogay iyo ragga iyo dumarka jooga jinsiga dhex maray iyo tarafka iyo kuraasidii taallay iyo khiyaamooyinka isku sameeyeen iyo wixii la dilay iyo waxaasaa laga warramaa oo qofka taariikhda akhristaa wuxuu moodayaa ummadda taariikhdooduba inay noocan u nahayd.
bale wuu ka yaqiiqsoonayaa inuu akhriyo. مثلا haddii maanta ingiriiska laga warramo qoyskiisa boqortooyada iyo dumarkii joogi jiray iyo rabshadihii ka dhici jiray iyo khiyaamooyinkay samayn jireen iyo isdilladay samaynayeen waxay kuuna muuqan lahayd dowlad yaroo baaba oo aan laf lahayn maca daalik uu dunidoo dhan gumaysanayay. taariikhulkabiirkuna ama taariikhda weynina waxay idhaahdaan waa dowlad ama ummaddaasi wixii injaasaad ah wax soo saare ay samaysay hadduu mid caskariya yahay hadduu mid dhaqaale yahay mid bini aadamnimo mid cilmi mid fikri mid qaanuun mid value waxay dunida ku soo kordhiyeen oo bashariyada wixii ay u tareen. haddaba bay dhahay nimanka reer galbeed iyo taariikhyahannadoodii waxoodu markay caalamul islaami ka warramayaanna taariikhu saqiirkay saaraan markay tooda ka warramayaanna taariikhul kabiirkay inoo saaraan. tooda waa saynis hebel oo waxaan soo kordhiyey dowladdaasoo waxaa qabatay taasoo waxaa dhistay wixii ay qabteen bay ka warramaanee macne nolosha ku samaynayay. caalamul islaami taariikhdiisa markay ka warramayaanna wixii khiyaamo iyo dumar iyo rag isdile iyo wixii la isqabsaday ee nooc ahaa bay soo tilmaamaan. xataa waxaan odhan karnaa waa masale bini aadamku uu baday inuu socdo. soomaalida qabaylkeeda dhegayso. ninku markuu qabiilka reerkooda ka warramayo intay goob guulaysteen iyo nin waayeelo caqlile intii soo martay iyo nin deeq badnaa iyo nin wax bixiye iyo nin gabyaabu kuu sheegaya. reerka kale laakiin markuu ka warramayo midna casoo beri ku jira iyo maalin ay ceeboobeen iyo mar wax ka dhacay iyo inta meelee liidatee reerka kale buu kuu sheegaya. yacni koodana taariikh kabiirkuu ka sheegaya reerka kalena wuxuu ka sheegayaa maxay taariikh saqiirkiisa wixii gafe ay geysteen ayuu ka warramayaa. fakadalik taariikhda ragga qora waa khatar qaabkay u bandhigaanna waa khatar iyadoo waxa la sheegayaa xataa uu run yahay ayaa run la isku qalloocinaya u noqon kartaa. weliba taariikhul islaami dhibta ka mida waxaa ka mid ah kutuba taariikhda caamkaa markaad u noqoto inta badan kuraasida iyo boqor baa dhaciyo bocor baa qabsaday unbay inta badan ka warramaan halka laga yaabo taariikhdii xadaaradii iyo dadkii iyo dhaqankii muslimiinta ee dhabka ahaa inaad ugu tagto kutubu taraajum iyo wax ka la mid ah iyo kutubu tabaqaat iyo marka culamada laga warramayo sheekhaasi wakhtigu noolaa ardadiisii dadkii wax u baray marka laga warramayana waa caalam kale. marka taariikhu saqiirka lagu saaro kursi la isku dilay iyo nin meel qabsaday waxaad soconaysaa meeshuba waxay ahaan jirtay meel dagaaluun iyo rabshadi ka socoto. haddaba sulaymaan alqaanuuni wuxuu dhashay taariikhda hijrigii markay ahayd 900 bishii safar 6deedii baa lagu tilmaamaa. wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo Trabzon. Trabzon waa magaalo ku taalla Baxril Aswadka waxay ka soo horjeedaa waddankan uu iminka qabsaday raashinka iyo qiramka la yidhaahdo tataarkan muslimiinta ah ee raacsiisnaa dowladdan kale ee Ukraine ee uu hadda Putin qasabka ku qabsaday waxay ka mid ahayd dowladda Uthmaniya. alqiram baa la yidhaahdaa waa tataarkii ka soo horjeedkiisa waa magaalo ku taallo xeebta ah. waxa uu Aba Yazid الثاني أبيه وسليمان أبيه والسليم أووجينا وأبا يزيد الثاني بايزيد نوحى أبيه محمد الفاتح كما معروف يلا يقانه اسطنبول نكي فرطي وسليمان كان أووجي صلبات. طرابزون مركو كل شيء waxay yidhaahdaan aabbihii isagoo kitaab haya ayuu inankan u dhashay dabeetana tayamunan qoys boqortooyare way ahaayeen isagoo ka barakaysanaya u bixiyey sulaymaan. nebi sulaymaan iyo meelahaas inuu ekaado oo kale ayuu sulaymaan ula baxay. Trabzon waa magaalo qolo Komnenos la odhan jiray oo caa'ila dowladihii Byzantiyiinta ahayd ay samaysteen siiba markii Istanbul ay ka qabsadeen dowladihii Laatiinku ay ka qabsadeen Byzantiyiinta nimankii la odhan jiray waxaanay ka mid tahay dhulkii uu furtay Moxamed al-Faatix. ninka Istanbul furtay ayaa magaaladanna hore u furtay.
wuxuu ahaa wiilka qudha ee lab ee uu aabbihii dhalay. saliim inan kale ma lahayn, hablo badan buu la walaalahaa ninka kani. waxay dhahdaan wuxuu la koray wiil qaadiga madiinadu uu dhalay oo ay saaxiib ahaayeen. qaadigaas oo nin caalim oo caalimudiin mutasawwifa ahaan jiray oo la yidhaahdaa yaxya ibnu cumar afandi. waxaa macallim u ahaan jiray khayrudiin afandi, nin sheekhoo caanoo la odhan jiray. 10 jir meelaha markuu gaadhay, dhaqankii ay lahaayeen waxay ahayd ilmaha boqorrada marka la gudayo waxaa loo dhigi jiray xaflad. 10 jir markuu gaadhay baa xaflad loo dhigay. aabbihii aad buu u danaynayey. markii uu qaan gaadhay kadibna awowgii baa waxaa loo weydiiyey in isna gobol loo dhiibo. dhallinta markay 20 jirrada ku dhadhow yihiin ayaa gobollada yaryar la geyn jiray si ay u soo tababartaan oo maamulka ugu soo tababartaan. marka aabbihii oo Trabzon haysta ayaa wuxuu wiilkiisa awowgii uga codsanayaa inuu isna meel loo dhiibo. aabihii saliim baa yaziid inamadiisa yaryar buu ka mid yahay. ninka weyno axmed la yidhaahdaa jiro isuu dhigaya inuu isagu boqortooyada qabsado. markay cabbaar la isku celceliyey, akhiiran kafa meel la yidhaahdaa maamulkeeda loo dhiibay. kafi qiramtaasay ka tirsantay. markaa waa meeshii koowaad ee sulaymaan uu madax ka noqdo. kafa markuu joogay muddo, markaa aabbihiina gobolka ka soo horjeeda ayuu haystaa. awowgiina waa boqorka waddankoo dhan. aabbihii hunguri baa galay boqortooyada siduu u qabsan lahaa, isaguna dhaxal sugihii rasmiga aha ma aha. aabbihii ciidamuu ka haystay isagoo 30 doonyood xawaalays wata ayuu u gudbay xaggii inankuu gobolkii u haystay qiram. gobolluu isku dayay inuu isku qabsado. isagii aabbihii baa yaziida dagaal baa dhex maray. dagaalkii waa lagu soo jebiyey. laakiin aabbihii waxay wada socdeen inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdo. raalli ahaada, taariikh haddii laga warramayo waxa fiican qofku inuu sawir guud haysto. magacyada tan iyo magaalooyinkan aan akhriyi doono iyo waxaan oo dhammina waa wax wada jadiida. maalan kafadan sheegayo iminka fiidosiya la yidhaahdaa. waagaa waxaa xukumi jiray oo laga xoreeyey janawadan talyaaniga boqortooyo ka jirtay baa meesha xukumi jirtay oo laga xoreeyey. magaalooyinka aynu sheegi dooniyo waxaasoo dhamme wax idinku cusub baa laga yaabaa inay noqdaan. macrako uguras la yidhaahdaa aabbihii lagu soo jebiyey. akhiiran inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdaa waa dad askarinimo gaara ay u tababari jirtay dowladda cuhmaaniyiinta oo aan qabaa'il lahayn. ama ha noqdaan addoommo yaryaroo lasoo helo la xoreeyo, ama ha noqdaan carruur yaryaroo sidooda loo qaatay. dad min carruurnimadoodii, qadiyadda tani waa qadiyaddii ay ku soo caanbaxeen ayuubiyiinta qole lo odhan jiray. marka dad yaryar oo militarinimo loo tababaro. dawlal mamaaligta maqashaan ee 276 sannadood talinaysay waa nimankanoo kale ay ahaayeen. waa dad loo traingareeyey askarinimo aan qabaa'il la shaqo ku lahayn iyo reerahays hayoo dhan. inkishaariyiintaasi waxay raaceen saliim. dabeetana odaygiiba la inqalaabay baa yaziid ahaa. boqortooyadii saliim baa qabsaday. sulaymaanna dagaaladaa kama qaybgeline gobolkiisii yaraa ayuu iska joogay. markii uu qabsaday ayaa aabbihii wuxuu dagaalla la galay walaaladiisii kale ay ishayeen iyo wixii oo dhan. laakiin wuu guulaystay un calaa kulli xaal inuu waddanka qabsado. inankii sulaymaan ahaa waa loo yeedhay. istanbul baa la keenay. waa la soo dhoweeyey. aabbihii baa hadda boqora. dabeetana waxaa la geeyey magaalo la yidhaahdo manisia. waa sanjaq markaad maqasho afkii turkida ee hore waa wilaayaadka. waa gobol nin maamulo. waa magaalo u dhow izmir magaaladan la yidhaahdo. odayga baayaziid la odhan jiray baana guri boqortooyo ka dhistay.
inta badanna waxay ahaan jirtay dadka waliyul cahdiga noqonaya meelaha lagu sii tababaray ee dawladda ka agdhow Istanbul agteeda manisiya la keenay markaa manisa meesha la yidhaahdo halkii hore ee kafa 3 sannadood buu xukumayay intii aabihii madaxweyne ahaana wuxuu xukumayay meesha tan ninkani waqtiga uu dhashay Sulaymani waa markii Andalus laga soo saaray muslimiinta 1492 meelahaas laga soo saaray sina 1495 meelahaas uu dhashay waa waqti muslimiinta galbeedka laga xoog batay dawladaha reer galbeedkuna ay xoog bateen waqtiga waxa jira markaa laba dawladood oo aad u xoog badan oo baxriyada leh ciidamada badda ugu tirada badan leh haysta sideedaba waxaad ogaataa dunida taariikhdeedii dambe dawladda badda ku xoog badan ayaa ah inta badan dawladda dunida ugu xoog badan ee Boortaqiisku ama Isbaanishku markay baxriyadoodu xoog badnayd dee ilaa iyo Mareykanka waa kuwii qabsaday gumaysanayay ilaa iyo muslimiinta soo jebiyeen North Africa oo dhan qabsaday ra'su rajaa'i Saalix meeshan Cape of Good Hope ka soo wareegay barigiina kan qabsaday Mombasa iyo dhulka kan oo dhan way qabsadeen ilaa iyo Muqdisho ay qabsadeen horu u sii socday Babul Mandab buu qabsaday uu ka wareegay Hormuz buu qabsaday iyo jasiiradda yar ee meesha ku taala India Ahmedabad gobolkii la oran jiray waa haysteen ayuu qabsaday dadka muslimiintii Ishta waa meesha nimka Indonesia la yiraahdo qabsadeen waxay ka taliyeen badda dhamaanteed waxay ku tala galeen inay cidhiidhiyaan wadooyinka dhaqaale ee India iyo Yurubta kale oo dhan isku xidhi jiray Yurub markaa waxa uu caansanaa dawladdii ad-dawla al-bunduqiya banadiqa bunduqiya waa Venice magaaladan la yiraahdo marka dawlad weyn oo Talyaaniga ka mid ah bay ahayd oo talisa dawladda iyo Uthmaniyiinta nooc isku xidhna dabeetana waxay ahaan jirtay magaaladoodu meelaha ugu badan ee baac mushtarka wixii India ka yimaada ama tariiqul xariir jidkii la oran jiray marayaan ama badda cas bay soo maraan dabeetana Masar bay yimaadaan Iskandariya yimaadaan halkaas ay ka baxaan Boortaqiiska iyo Isbaanishku waxay ku tala galeen caalamul islaami inay go'doomiyaan oo ay ka xagga dhaqaalaha kala dagaalamaan markay Andalus iyo intaas qabsadeen ay xoogaysteen waxay xidheen markaa khaliijka meel kasta laga galo ama Babul Mandab ha noqoto ama خليج العرب أو خليج الفارس ماشاسي جزيرة كتالها هاتو ويحدين مركا وحي نقدين دولة هذا حق بدن إسلام مركا عالم الإسلامي نقو بربرسيني ومركي أندلس القبساني يعيدوا قرقارت لمهلين حاجة كلا وحا صاب بحضي بورتغيسكا هي الدولة الصفوية أو الشيعة هيد أيها الشيسية وضقلية حديد الدولة العثمانية دمانتو دينا يعلى وذيهين الشيسية دا كتركتانا بصابح دي بورتغيسكو إنا الربان مدينة انت قفصدان حباش النبي محمد إنا يلفاها كلبحان أما النبي عليه الصلاة والسلام دي عيد معن تينا يلبحان نبي محمد شركي سينا ماشا كقاطان وانت اللي جاي يوروب لوغو غورغورتمو بيت المقدس ان لسو عليو بيت المقدس كانت مسلمين تو كجرا دوله المماليك بايستا marka in dib loo soo celiyo بيت المقدس waxay u mareen طريقه الدوله العثمانيه حقا hadaynu jabin kari weyno kuwan ba jilicsan intaynu xaqan marro in la labaxo النبي عليه الصلاة والسلام قبريس دولة السفوية نوي كل هالشيء با الله شيغا وركاسنا وصابحي وضيقي دالي سليمان القانوني دقالدي يوروب مو بلابين وحو سو جيستي هورتا انو عالم الاسلامي ميدايو دبيتنا وبورتغيسكا كهورتاغو سو غوان كا سو قات كدب دقال بو قاداي wuxuu ku qaaday labadii dawladood ee meesha ka jiray mid waa dawladda al-Mamalik ee Masar haysatay Masar uu qabsaday iyo Dimashq iyo Halab iyo intaas oo dhan uu qabsaday
dagaal labaad buu qaaday dawla safawiya dawla safiya wada maqashaan waa Iiraaniyiinta tan Iiraaniyiintani waagaa dawlad xooggan bay ahaayeen ilaa Georgia Armenia ilaa iyo Bahr al-Qazwayn ayay ka talinayeen asalkoodu waa nin la yiraahdo Safiyuddin al-Ardabili Ardabil magaaladan la yiraahdo waa Iiraan gobol ka mid ah Ardabil magaaladu wali waa jirtaa magaalada nin wadaado suufiyo oo joogay ayaa dariiqo sameeyay safawiya la yiraahdo suufi shaafiiciye buu ahaa madhabka shaafiiciyada haysta dabeetana dariiqu sameeyay dariiqo xamaasad badan bay ahayd aad bay u faafeen way ballaadheen dariiqadii waxay qabsatay barigo dhan iyadoo madhabka ahlu sunna wali rumaysan inan uu awoowo ahaa al-Khoja Cali la yiraahdo ayaa shiica noqday dabeetana dawladdii waxay isu bedeshay nin siyaasiyu noqday dawlad buu qabsaday shiicu noqday raafida 12 ku biira marka waa jaddahu al-khamis ashaah ismaaciilka safawiga ee muslimiinta qasabka ku shiiceeyay awowgiisii shanaad buu noqonayaa markaa Safiyuddinku meeshuu qabsadeen dawlad ballaadhan bay noqotay ahlu sunnuhu laayay qasab wuxuu kaga dhigay Iiraan 5 qarni horteed muslimiin ahlu sunnah bay ahaayeen inta madhabka yara shiicadii labada Iiraan wuxuu ka yimi Lebanon madhabka Lebanon baa u culamo ahayd Iiraan tan iminka ay cagsiga tahay dawla safawiya markay qabsatay qasab bay ku shiicaysay muslimiintii ama waa lagu dilayaa ama shiico xaggaana qasab baa lagu kiristaameeyey wixii xaggaa xigay Saliim ninka loo yiraahdo oo ah Sulaymaan aabihi reer galbeedku markay dacaayadeenayaan waxay u bixiyaan Saliim the Grim bay yiraahdaan Saliimkii caabiska ahaa nin adag buu ahaa baa la yiraahdaa Franciscana waxay yiraahdaan Saliim la Tribal Saliim ar-Rahib wuxuu bilaabay inuu caalamul islaami mideeyo marka wuxuu qabsaday Masar iyo dawla al-Mamalik oo dhan Jaldarin macraka la yiraahdo ballaadha buu safawiyiintii ku jabiyay ilaa iyo caasimadoodii buu qabsaday kadibna dawladda ballaadhan intuu dagaaladan ku soo jiray Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu u diri jiray Adirna wax waliba malaynaan sharxaabay u baahdeen Adirna waxa la yiraahdaa waa magaalo ku taala qaybta Yurub ee Turkiga qayb baa jirta Yurubiyana oo Istanbul baa qaybiso badhna Yurub iyo badhna xaggan yahay marka gobolada Yurub oo Rumelia baa la oran jiray Rumelia barigii dambe waxa soo hoos gali jiray Baltiiqan oo dhan yani waxa soo hoos gali jiray maxaa la yiraahdaa Balqaankan u jeeday oo dhan Montenegro iyo Serbia iyo Bosnia iyo maxaa la yiraahdaa Macedonia iyo waxa soo dhan soo hoos gali jiray markii dambe Rumelia qaybta Balqaanka Turkigu magaalada koowaad ee kala wadaagay gobolka xukunta Adirna la yiraahdaa si aan dagaaladii Yurubiyanku u soo guurin ayaa Sulaymaan al-Qaanuuni aabihi wuxuu u diray intuu dagaalada xaggan ku maqan yahay inuu isaguna joogo maxay waqooyiga qaybta Yurub inuu joogo xuduudda wadanka ilaaliya xagga waqooyiga odaga Saliim al-awwal baa lagu tilmaamaa ilaa 5 sano ilaa 8 sanadood meelahaas buu xukunka hayaan filayaa markii dambe isagoo sii socda Adirnadii ku socda Jurlo magaalo la yiraahdo maraya ayaa ama taacuun ama sun waxba ku dhacay uu dhintay dhakhtarkiisii baa qariyay geeridiisa markaa wasiiradii iyo qura loo sheegay Bir Muhammad Basha iyo Ahmed Basha iyo Mustafa Basha saddexda wasiir baa loo sheegay dabeetana waxay go'aansadeen in la qariyo geeridiisa ilaa iyo inta uu Sulaymaan Istanbul ka tagayo ee boqortooyada ka qabsanayo waayo jeeshka al-inkishaariyiinta la yiraahdo cabsi laga qabay hadii goor boqorradu markay isbedelayaan khalkhalay sameyn jireen marka intuu boqorku ka gaadhayo caasimada in la qariyo ciidamadii cidna looma sheegin Sulaymaan aqa nin la yiraahdo la diray waxa la yiri u tag Sulaymaan u tag
u sheegay aabihii inuu dhintay istanbul la qabadhe adirnu joogay waa ka tegey istanbul buu tegey markuu maanta oo kale istanbul galay ay berriyo kale meydka aabihiina la keenay yani markuu dawladdii la wareegaa berriyo kale meydka aabihii la keenay oo ay la socdaan nimankii madaxda ahaana September dabayaaqadeedii baa lagu tilmaamaa adigu 30kii September meelahaas bay ahayd meeshii buu qabsaday boqor buu noqday Sulaymaan maxaynu ka sheegnaa markaa taariikhdu waa duruus aad u qaaliya laakiin waxa aad aan suurtagal u ahayn 46 sannadood buu boqor ahaa waa boqorkii ugu dheeraa dawladda Uthmaaniya waa boqorkii tobnaad marka hore Uthmaan al-awwal oo ah Uthmaan ibn Artaghar allawa ninkii sameeyay dawladda Uthmaan al-awwal marka laga soo bilaabo isagu waa boqorkii tobnaad ee dawladda Uthmaaniya waa boqorkii ugu xoog badnayd dawladdiisu waxa la tilmaamaa ninka kani 10 sano iyo dhowr bilood muddo lagu qiyaaso goob dagaal taagna 10 sannadood iyo dheeraad ayuu goob dagaal joogay cimrigiisa intii badnayd bay dhaahdaan markuu gaboobay mooyaane intii kale isaga ciidamada hogaamin jiray goob dagaal la uu taagnaa wuxuu geeriyooday isagoo goob dagaal jooga oo isbit magaalada la yiraahdo Siktivar waa magaalo ku taala Majar waa Hungary koonfurteeda magaalo ku taala qalcada isagoo xisaar ku haya ayuu geeriyooday noloshiisa intii u badnayd dagaal buu ku jiray 13 ghazwo 13 dagaal oo waaweyn oo caalami u qaaday intii waqtiga uu noolaa 13 dagaal buu qaaday oo taariikhda dunida wax badan ka bedelay waxay yiraahdaan intuu faraska fuushanaayo soconayay 48,000 oo kiiloomitir buu faraskiisa ku jiray bay yiraahdaan 48,000 oo kiiloomitir 48,000 oo kiiloomitir waa imsaad u malaynaysaa dunida muxiidkeeda ma taqaanaa ninka intuu Mombasa ka baxa xagga bari u kacay galbeedka ka soo gala imsoo socdaad u malaynaysaa waa 40,000 oo kiiloomitir waa 40,076 kiiloomitir meelaa weeyaan that means Sulaymaan al-Qaanuuni fars isagoo fuushan buu dunida ku soo wareegay weeyaan intaas goob dagaal buu taagnaa uu soconay oo faraska u fuushana waxay yiraahdaan wuxuu ka taliyay oo ciidamadiisu bariya galbeedba u mareen saddexdii qaaradood ee dunida markaa la yaqaanay dunida markaasi maraykannadan inaynuguma xidhnayn Australia waxaanina wax buuran ma ahayn oo la garanayo dunidu saddex qaaradood baa markaa bini aadamku boqortooyin ku dagaalami jireen waa Afrika Asia iyo Yurub saddexda qaaradood la yaqaanaba al-caalam al-qadiim barru wa bahru dagaal buu ka galay waxa la yiraahdaa waa boqorkii muslimiinta ugu badnaa ee si dhex taaga ee qabsada qalbi Yurub bartamaheeda futuuxaadkiisa dawladdu aabihii ka dhaxlay aabihii markuu caalamul islaami dhawaa mideeyay buu dhintay intiisii ugu badnayd markuu mideeyay aabihii laakiin dawladdu ka dhaxlay ilaa 6 milyan iyo badh kiiloomitir bay ahayd 6.557 square kilometers bay ahayd baa la yiraahdaa Sulaymaan al-Qaanuuni dawladda Uthmaaniya markuu ka tagayna حوالي 15 مليون أو كيلومتر به 15 مليون أو كيلومتر مربع به وحال هذا مددي ودقال كودي دقال لدو يسوقوا هقامين يهر سعودي صدح بقول يلي احنا نقل عضاد يحسن مفرطة صدح بقول يلي احنا قلعة يحسنتا رفيسيد يدول كي لقالي شري واقي هوري af Soomaali qalcad maxaynu ku dhahna waa saldhigyadan uu ku wareegsan yahay dhismo aan faras iyo ciditoona ka soo talaabi karin waa dhismo dheer oo magaalooyinka waaga hore lagu wareejin jiray oo la iskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cidda soo qaadayso dhan magaaladu cunno ku filan haday hesho oo albaabka xidhaan cid walba way iska difaaci karaysi yani dhulkii caynkaas ee
qalaacdii ama xusuuntii ama dhufaysyadii la samaystay inta badanna magaalooyinka waaweyn baa lahaan jiray iyo meelaha muhiimka ah 360 ka mid ah buu furtay bay yidhaahdaan wakhtigiisii mu'arikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa acdam almuluk dunida soo mara mid ka mid ah boqortooyinkii dunidaba soo maray kuwii ugu waaweynaa mid ka mid ah inuu ahaa waxay yidhahdaan wuxuu ka teliyay cawaasimta maanta la yaqaano caasimadaha dunida maanta la yaqaano athens sofia baghdad dimashq istanbul budapest belgrad qaahira bucharest sarajevo tiriun waxa maanta caasimad la sheegay intooda ugu badan leh ee yurubta bari iyo balkaniska ah ama caalamul islaami ah intaasuu boqor mar wada ahaa ilaa tibriz laga gaadhayo waa caasimatu safawiyiin eeraan qaybteeda waqooyi bay ku taallaa waxaa lagu tilmaamaa wakhtigiisii inay gaadhay dowladdii cuthmaaniyiintu heerarka ugu sarreeya ee dhaqaale iyo bulsheed guulihii siyaasiga uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulshada waddanku u lahaa waxaa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyey mabaadi'i alcadli waalqaanuun sulaymaan alqaanuuni wakhtigiisii lama odhan jirin wakhtigiisii as-sultaan sulaymaan baa la odhan jiray waa dambe ay taarikhyahanadu qorayaan baa waxaa loo bixiyey ninkani qawaaniintuu jideeye cadaalad ku saabnaa daraaddeed baa loo bixiyey sulaymaan alqaanuuni reer galbeedku iyagu waxay qoraan sulaymaan the magnificent bay yidhaahdaan sulaymaankii weynaa ayaa la yidhaahdaa sulaymaan alcadiim kutuba taariikh reer galbeedku markay ka warramayaan waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla wa aqwaaha fi lcaalam qarnigii 16aad qarnigii 16aad dowladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa ah xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan hadday ciidamada madaafiicda yihiin hadday ciidamada lugta yihiin hadday ciidamada fardaa yihiin waxay yidhahdaan madaafiicdii ugu waaweynaa dunida markaa ugu khatarsanaa dowlad cuthmaaniya baa markaa haysatay walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand turk bay odhan jireen kabiirul atrak kii u weynaa turkida 46 sannadood baanu sultaan ahaa dhanka khilaafada marka laga eego waxay yidhahdaan xawaalay alkhaliifa 80 oo kale laakiin kuwaa hore ka kaalay dowla alcuthmaaniya cid khilaafo sheegata aabihii baa ugu horreeyey awal wuxuun bay ahayn dowla alcuthmaaniya laakiin khilaafada ayaa sheegan jiray almutawakil cala allah nin la yidhaahda baa joogay qaahira oo magacuyaal iska ahaa markii tataarku ay jebiyeen khilaafadii baqhdaad degganayd cabbaasiyiinta ciddii ka hadhay waxaa la dejiyey maxay qaahiro iyo qidis iyo dhankan bay yimaadeen dabeetana magacuyaal ahaan baa loo magacaabi jiray khaliifka laakiin waxaa meesha maamuli jiray boqorrada mamaaligta baa maamuli jiray markuu qabsaday aabihii masar ayuu qaaday kii boqortooyadii ugu dambaysay ka jirtay khaliifkii ugu dambeeyey islaamiga ee meesha joogay almutawakil cala allahi la odhan jiray markaas buu geeyey istanbul wuu uga tanaasulay bay sheegaan aabbihii baa ah markaas saliim baa ah dowla alcuthmaaniya awal rajul khaliif sheegta kuwii ka horreeyey salaatiinuun bay ahaayeen ciddii koowaada khaliifo sheegata waa saliim ninkani markaa khaliifu isagu dhaxlay sulaymaan alqaanuuni markaa isagu waa khaliifatu lmuslimiin athani بالنسبة إلى الدولة العثمانية وخليفة المسلمين تلبات مركا لأيغو الدولة العثمانية عهدي لحيا فرطن كسنة وحكومة يودن كاسي وحيكون شيئانون يهي العصر الذهبي للدولة العثمانية بين هذا والعصر الذهبي عصر كي أما وقت كي ذهب كأها أي صامرته دولة داس waxay yidhahdaan saltanadiisu waxa hunguri kaga jiray inuu dunidoo dhan qabsado
sidii ay waqtigii dambe duwalka reer Yurubka ku fakarayeen oo kale ayuu isagu ahaa marka la eego Yurubta boqorada Yurub waxay ahaayeen dad ka dambeeya boqortooyadiisii oo waxa la yiraahdaa Yurub al-Hadith ama Modern Europe iyo xuduudahan ay leedahay waxa ka qayb qaatay samaynteedii bay yiraahdaan wixii isagu geystay dagaallo 13 uu qaaday dhan walba wuu qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday Jabuuti qabsaday Eritrea qabsaday Soomaaliya qabtay Yemen buu qabtay Cadan iyo Ticis iyo qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yiraahdaa Sawaakin waa wadankan Suudaan la yiraahdo qayb ka mid ah wuxuu xoreeyay oo Boortaqiiska ka xoreeyay manطقadan loo yaqaan al-Bahr al-Ahmar Suqatar uu qabsaday intaasoo dhanba Boortaqiis buu ka kiciyay ahdigiisu waa waqtigii xaggan kalena Axmed Guray uu ka dagaalamayay oo ay isku ahdi bay ahaayeen Axmed Guray iyo maxay iyo Sulaymaan al-Qaanuuni waa isku waqti wuxuu gaaray xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay Cumaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo Baxri al-Arabka ee Iiraantiya Carabta u dhaxaysa buu qabtay jasiiradda meesha ku taala buu qabsaday al-Ihsaab uu qabtay kadibna waxa soo hoos galay Qatar Bahrain Kuwait Sacuudiga waxa soo dhanba hoostiisa yimi dawlad Safawiya wuu jabiyay Baghdad buu dib u qabsaday Tabriz buu qabsaday laba magaalo iyana kuwa gobolada sare Georgia iyo Armenia qayb ka mid uu ka qabtay caalamul islaami oo dhan intiisii ugu badnayd India muslimiinta joogtay markay Boortaqiiska ka cabanayeen isaga ay u cidirteen dabeetana ustul bahriya buu Masar ka amray inuu ka baxo oo Ahmedabad meesha la yiraahdo intuu tago inuu u heeliyo markuu Boortaqiisku qabsaday wadankan loo yaqaano Indonesia waxay u cidirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo Boortaqiiska meesha markay qabsadeen Isbaanishku Algeria iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu soo diray wuxuu sameeyay ninkii loo yaqaanay Khayruddin Barbaroos waa gadhcase nin baa jiray badda Mediterranean-ka la yiraahdo ka talin jiray oo gadhcase la yiraahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usqulka bahriga ah ay leedahay dawladda Uthmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadka ku dhaca badna burcadbadeed tira badnayd caalamku burcadbadeed waaga waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dawladaha Yurub cidii doon yar samaysan kartaa intay doon samaysato ayuunba badaha la tagi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si badda loo nabad geliyo Khayruddin Barbaroos baa loo soo diray ilaa iyo Algeria qabtay Libya qabsaday Tunisia qaybaha ugu badan buu qabtay Algeria qabtay Isbaanishkii buu meesha ka eriyay waxa dhacday markaa way iska hor imanayaan dawladihii markaa dunida ugu xoog badnaa مثلا يوروب markaa waxa u xoog badan آل هابسبرغ boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynaya waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dheeraa ee Yurub ka taliya kamida asalkooduna waa namsaawiyiin namsa wadankan Australia la yiraahday deganaan jireen waxa jira nin kamid ah boqortooyada oo Sulaymaan markuu 1520 meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Carl ama Charles Khan afafka reer Yurub qolaba si u qortaa waa Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin Al Habsburg weeyaan boqortooyadii namsuuleeyay
islaanu hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa Spain oo boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabbaha buu ka dhaxlay boqortooyadii Germany-na wuu dhaxlay wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa Yurub boobku nin quru u ogolaa inuu imbaraator magacaa sheegto dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo talyaanigana caasimadda ka talinaya odayga Macmillan odayga Jarmalka haysan jiray awowgiya ahaan jiray Francisca ninkii madaxweynaha ka ahaa Francois la odhan jiray bay ku loolameen meeshuu qabsaday cala kulli xaal waa nin markaa 4-5 wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan Charleski shanaad baa la yidhaahdaa Francisca boqortooyada iyo boqortooyadaasaa loo lamayay kadibna waxaa dhacay in dagaal la dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen marka horeba dawladda tan al-Habsburga iyo dawladda Uthmaniya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiray laakiin markay tani timi waxa soo baxay dawladda Faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii la odhan jiray al-Habsburgaasi oo uu hogaaminayo ninkaasi Carlos la yidhaahdaa Carloski shanaad dagaal baa dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xidhay dagaalkii baa lagu qabtay François-gii koowaad markii la qabtayna waxa lagu xidhay meesha loo yaqaano Madrid ayaa la keenay Madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii Francis wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dawladda Uthmaniya oo wuxuu leeyahay nin baa si xun ii galay waa la xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsiga laga soo daayay hooyadii oo naa'ibad u ahayd oo Francisca markaa xukumaysa waraaq soo dirtay islaanta waraaqdeedii waa tan waxay leedahay muddan sugayay inankayga xidhan anigoo inuu rajaynaya inuu bini aadamnimo eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadayadiina way gaabatay sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leeyahay fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wa inqaadih من قبضة ظلم عدونا وذلك بعظمتكم وجلالتكم المؤيدة والمصدق عليها من العالم وحلا هذا بقرك فرنسيس دون بسودين كره هذا بقرك الدنيا ده وين ده هي جلالة ده وحنقع عصرنا بقرك يجيب محبوسين تسوديسه بقرك فرنسيس كحدنا بس نور قدر إياه وحلي إلى حضرة حاكم وسلطان البلاد والممالك من أنحاء العالم المعمورة وحن وراغدا وقري يا أبو لي بقرك يتليها كتليه دنيا أنت اللي تدقيني هيبا إنك ما ضحضواه السلطان المعظم والخاقان المفخم الذي هو ملاذ جميع المظلومين بولي بقرك دنيا أنت الظلماني نينك أي حقي سوى عرتبو لي أعرض على حضرتكم ما في القلب وحال نفتي دا كوشيران خوصا بندقى يا أوام حي فرديناند مركا فرديناند وشار الكال ولالكي أو مجر هنجري كتالينيا فرديناند وملك مجرة مركا ويررتين شار الكان أنغو نغا أرغوستي بولي أنغو نويرر بقر كامل كايدنكو ويررتين بوكاني أنغا نغا أرغوستي dabeetana maxbuus baanahay fadligaaga uun iyo waxtarkaagu uun baan sugaa buu leeyahay qiyaas France oo katolika hogaamisa boqortooyinkii waaweyn ka mid ah
oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale uu waraaq u dirayo Istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul si uu boqorada u sii daayo فرانسيسكا سفيركي كسعودي مركو ينمو وحيري الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد صاعده بالمعاهدة التي سيعهدها معه الملكان حليه هي الملكان هدي أنا بقرك ويرر كو قادم بولي بدء يبري بله هدات كو قاده boqorkayagii waa la soo daynayaa haddii kale waxa dhacaysa bay leeyihiin boqorkayaga uu xabsiistay inuu jabo oo mucaahado iskala galo oo Yurub oo dhamiisu ka raacdo ee dantu aday kugu jirtay ka gaadh buu leeyahay muxuu ugu jawaabay Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu ugu jawaabay kow waraaqdu waxay ku qorantay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo ana sultaan as-salaatiin kabiir al-muluk أنا الذي أتوجه الملوك ذل الله في الأرض أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والروملي والأناضول وقارمان والروم ودو القادر وديار بكر وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وحشيغانا يا أنت وحكومة دونيده مركو الشاكتي كدب أيوح قري من السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا ملك ولاية نك فرانسيس أردن حكومة وحلقة يا معي ملك ولاية فرنسا أبو لي هو صقري وأنا سوق على يبوي وركي فرنجباي ergeygaad soo dirtay Faranjabay la yiraahdo risaaladii qorayd iyo tii afkaba ahayd wuu noo keenay buu leeyahay waana naloo sheegay cadawgiinu sidoo ku galay iyo inaad muxaasir tahay waanan fahmay inaad u baahan tahay kaalmadayda iyo inaan ku gargaaro waxa soo dhan hortaydu ka sheegay buu yiri waanan fahmay warkaagi ee adiga mid baan ku sheegayaa buu yiri wax weyn ma aha buu yiri in boqorada la xidhaaye horta murugada iyo niyad jabka iska ilaali buu leeyahay ma wallahi xidhay wax laga calaacala ma aha buu leeyo ninka calaacale fala tahzan wala tahtam fa inna aaba'i al-kiram buu markaa leeyahay wa ajdadi al-'idham nawwara Allahu maraqidahum lam yakunu khalina min al-harb لأجل فتح البلاد ونحن أيضا سالكون على طريقهم وفي كل وقت نفتح البلاد والقلاع الصعبة الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم وكو إليه هي waxaan ku sheegay aabayaashaydii sharafta lahaa iyo awowyadeydii waaweyna ilaahay xabaalahooda ha nuuriye dunida waa furanayeen anna waxaan ku sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yiri wixii ware hoosana waxa ku sheegi doona buu yiri rasuulkaaga wixii ware hoosana ergeygaad soo diratay ayaa ku sheegi doona buu leeyahay yani waxay tilmaamaysaa salaatiinta Yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yiraahdaa kuwa u geeya jisyada kuwa u geeya markii maalan madaxnimada la saarayay isaga markuu boqortooyada qabsanayay waxay yimi boqorradii dunida qayba ka mid ah waayo dee sultaankii dunida ugu weynaaba la caleema saaraya waxay yimi ninkii madaxda u ahaa meesha la yiraahdo Ragusa waa magaalo ku taala Sicily Sqaliya meeshan la yiraahdo waxay yimi kii raashenka waxay yimi kii bunduqiya
salaatiin badan baa yimi waxay u yimaadeen litahni'ah boqorkan weyn ee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniyo u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisyo talab heshiisyaday soo qorteen waa maxay raaguusa qolada la yidhahdaa way timo waxay yidhaahdeen waxoogaa hubana waanu u baahanay dakhiira inaad naga iibiso cashuuraha qaarna naga dhaaf bay leeyihin markaanu dekedahaaga nimaadno iyaga wuxuu ku yidhi hubka laydinka iibin maayo laakiin waa laydin siinayaa cashuur dhaafka waa laydin siinayaa soo imika maraykanka inta la tago kontragyana lama soo saxeexdo waxoogaa hubana naga iibin lama yidhaahdo oo marna ma yidhaahda idinka iibin maayo marna waa idinka iibinayaa sidii oo kale weeyaan waxay leeyahay cashuuraha qaarna naga dhaaf hubna naga iibi wuxuu u ogolaaday qolada inuu cashuuraha qayb ka dhaafo laakiin hub laydinka iibin maayo waxaa yimi safiirkii raashiya isagu wuxuu leeyahay nimankan qiramka la yidhaahdaanu khaatiga taaganay qiramka waa tataarkan waa meeshaan iminka uu qabsaday ninkani ayaanu khaatiga taaganay kuwaana nagala hadal mucaahadana nala gal heshiisna nala gal wuxuu yidhi wax heshiis aan idinla gelayaa ma jiro laakiin kuwa maalmadaaya waan odhanayaa kuwaas inay maalmo idin daayaan waa ogolaanayaa laakiin mucaahada ma jirta iska taga idinkuna waxaa yimi albunduqiya bunduqiyadu waa venisia magaaladan la yidhaahdo bunduqiya qoladii haysatay waxay dalbanayaan iyana mucaahadaadkii hore in loo cusboonaysiiyo marka hore way ammaaneen boqorka aad baanu ugu qanacsannay bay leeyiin boqortaydaad iyo waxaad waddo oo dhan waxaanu rabnaa heshiisyadoodii iyaga dan kalu lahaa waayo markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaadhan oo yurub ku qaado aluhasbergeedii iyo majariyiintu uu duulimaad ku waday saa daraaddeed wuxuu rabay bunduqiyada tan inuu ka saaro xilfi wadaagga qolada inaanay gelin iyaga mucaahadu la galay mucaahadada waraaqdii inta la qaadaa waxaa laga akhriyey majlisu shuyuukh ay leedahay meeshaasi 1522 abril 8 soddon bandi ama soddon qodob bay mucaahadadu ka koobantay ka koowaad tijaarada in xorriyad laga dhigo loo ogolaado nabaddana la sugo ka labaad safiir inaad noo ogolaato inaanu istanbul keensanno oo weliba 3 sannadoodba maraanu kaa beddello safiirku safiir daa'ima maaha every 3 years in la beddelo wax allaaliya wixii kaa soo baxsada inaynu soo celinno dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamiina soo yaaca in la isu celiyo nimanka banaadiqadii ama dawladdiinnaasi waddanka istanbul gudaheeda inaydan waddanka turkiga gudihiisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiya mooyaane waddanka gudihiisa warqadda dhaqdhaqaaq ee safiirka ayuunbaa ka qaadan kartaan waxay codsadeen north africa intaan ay muslimiintu xukunto in loo ogolaado inay la baac mushtarayn karaan waxay aqbaleen wixii doona tijaare ay leeyihiin istanbul inta la keena in la baadho marka hore waxay sido la ogaado waxa ay sido waxay aqbaleen 5,000 ilaa 10,000 oo dahaba dawqiya dahabiya ah oo jizya inay sanad kasta ka bixiyaan labada jasiiradood ee Qubrus iyo Zantana dawladda Uthmaniya loo keeno mucaahadad soddon bandi ka kooban buu qoladan la aqbalay waayo bay dheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadayo inaanay qoladani qayb ka noqonin oo ka soo qayb gelin waxaan leenahay markaa boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka aynu odhan karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaaba wakhtigaasi ahaa oo boqortooyooyinkii wakhtigiisa la noolaa waxaa ka mid ah imbaratorka Karol al-Khamis la yidhaahdo oo arshadoq waa boqortooyada ka talisan namsa ahaa imbaratoriya almuqaddasana isagu dhaxlay iyo Spain imbaratoriyadeedii waxaa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa boqortooyooyinkii Faransiiska François koowaad iyo Henrygii labaad
waxaa ka mid ahaa boqortooyadii ingiriiska henrigii sideedaad qaysarkii ruumaan qaysarkii rushiya caalamulislaami marka la eego boqortooyinka yarare jira waa shaah tahmaasibku ismaaciil safawigii oo odaygii hore saliim uu jabiyey inankiisii weeyaan iyo hamayuun albaburi waa ninkii xukumayay markaa indiya dowla almaghuuliya ka soo hadhay baaburku soomaydan maqalimka masaajid had iyo goor la isku hayo ay dumiyaan oo indiya ku yaallo ay leeyihiin macbad ha loo bedelo hindidu ay ku doodayso waa hamayuunkana aabbihii ninka dhisay baaburiga la sheegaya waa kaa aabbihii hamayuun albaaburiy waxaa ka mid ah akbar shaahi oo ibnu hamayuunkaasi markuu dhintaya waxaa soo boqorro oo dunida ka jiray marka la barbar dhigo sulaymaan alqaanuuni waxay ahayn dowlada yaryar ee la ilaaliyo mu'arikhii qarnigii 16aad ee muslimka ahaa sheekhii la odhan jiray jalaal zaada mustafa shalabi markuu sulaymaan alqaanuuni ka warramayay wuxuu yidhi innahu zubdatu aali cuhmaan buu yidhi dowla alcuhmaaniya zubdadeedii muceedu ninkan buu ahaa buu yidhi 3 shay baanu ku caanbaxay buu yidhi alcadaala oo dadka uu cadaalad sameeyo iyo ximaayatu shacbi wasacyu calaa masaalixihim shacabka ilaalintiisa iyo masaalixdooda guud inuu dhowro iyo sifatu lfaatixi alcaalamiy inuu ahaa nin furasho badan waxay dhahaan sulaymaan alqaanuuni wuxuu ahaa nin gabyaaya oo gabayga ku fiican wuxuu ahaa nin luqada carbeed iyo luqada beershiya iyo luqada atraagta siba lahja tataariya iyo turkigiisiiba afartaa luqaba nin si fiican u yaqaana buu ahaa bay yidhaahdaan waa kuwa yidhaha gabayadiisa caanka ay sheegaan waxaa ka mid ah gabay uu leeyahy markay tarjameen wuxuu ka mid ah ina sijaadatan takfi suufiyayn 2 walakina alcaalama kulluhu laa yakfi limalikayni buu yidhi hal sijaayada laba wadaadoo suufiyaa waa iskaga filantahay buu yidhi laakiin dunidoo dhammi 2 boqor kuma filla buu leeyahy gabay uu tirinayo yacni caalamu siyaasi hunguriga yaalla iyo caalamu zuhdi inta deeqi karta buu tilmaamayay cahdigiisii baa la qoray qaanuunkii ugu badnaa ee waddanku ilaa iyo dowla alcuhmaaniya ay dhacaysay ay ku dhaqmayeen qaanuunkiisu wuxuu ka koobnaa baa la yidhaha fataawi alculamaa walidaalik qisaska cajiibka ay ka sheegaan waxaa ka mid ah markuu dhimanayey ayuu yidhi sanduuqa ha layla aaso sheekh alislaamkii ahaa mufti dowla ayaa wuxuu yidhi sanduuqa armay wax qiimo leh ku jiraan ha la furo ilaan in hadday mujawharaad iyo wax wanaagsan ku jiraan in xabaal la geliyo maahe sanduuqa aan ogaana buu yidhi waxa ku jira ha la furo maydkiisi iyo meesha yaalla sanduuqii la furay sanduuqii waxaa loogu tegey wixii uu sheekhulislaamku fatwo siiyey oo dhan oo qoraala buu ku sitaa ilaahay baan la hortegayaa buu yidhi wixii aan dhigay inaa idigu fatwooteen oo ay tahay waxay yidhahdaan marka qawaaniintuu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay yidhaahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxaa lagu tilmaamaa ninka kani inuu caan ku ahaa awqaafta iyo waxyaabaha khayriga ah wuxuu caan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawasho tage ku yaalla waa ninkii dhisay maalan masjid sulaymaan alqaanuuni waa maqashaanin badan oo masaajidda ugu caansan ee marka la tago istanbul la daawado ah isagaa dhisay jaamacaddii kulliyaadkii la socday isagaa dhisay masjid saliim isagaa dhammaystiray bayt ulqudus dib buu tarmiim ugu wada sameeyey maka waxbuu ka dhisay makiya madiina wuxuu u sameeyey khadamaad cusub buu u sameeyey jawaamicda caamka jaamican weyne ku yaalla maxaa la yidhaahdaa baqdaad alimaam alacdam jaamiciisa isagaa dhisay cabdilqaadir jaylaani jaamiciisa isagaa dhisay waxaasoo dhan markaynu eegno inta aan idiin sheegay waa cumuuman muqtadafaad ka mida wixiisii laakiin taariikhdiisii kama warramin waayo taariikhdiisa dagaalladiisoo qudha haddaan ka warramo dee waa 13 dagaal oo cawaasimta dunida ugu caansan ku furtay belgrad isagaa furtay
budapest isagaa furtay bucharest yani cawaasimta dunida maanta la yaqaano waa ninkii dagaalada ku furtay walidalik maynan ka warrabin taariikhdiisii laakiin waxaynu ka warrannay dawla alcuthmaaniya oo cahdigiisii maamulayay simaadka caamka ay lahayd wakhtigiina wuu dhammaaday halkaasaynu ku joojin wallahu aclam billahi tawfiiq